horeyntii magacayga waxaa waaye Degla Faagka dalka Soomaaliyeed Faaiz Cabdi Cabdi Cusmaan. Waxaan ciidanka ku soo biiray 2012 bishii Afraad. Wuxuu dhibkii soo gaaray 2016 bishii Sagaalaad. Dhibkaas markuu soo gaarayna waxaan howlgal ugu maqnaa gobolka Shabeellaha Hoose, khaasatan Baladogle. dhaqaatiir Turkiga waxay ii sheegeen in dalka Jarmalka wax laga qaban karo. Waxaan kulanay doodisha Abriil madaxweyne Farmaajo oo runtii ii ballan qaaday in maaragtay xaaladeyda oo garab igu siin doono meel alaali meel caafimaadkayga laga helay Ilaaha caafimaadkaaye oo igey doono. Runtii maantana waxaa lagu jiraa bisha Juun. Intaas waxaan sugayay waxaan ahay rajo ku nool in aan heli doono. dadaal badan iyo xiriir badan aan sameeyay. xilli walba waxay ii sheegaan in maaragtay waqtigu ka dambeeyo ay ii maqan yihiin. Soomaaliya hore waxa ugu maamaado meel heel u baahan hee waxba kama tarto. runtii anigu waxa u baahanaa heelkaas oo ay maaragtay dhibaatada i haysato garab la igu siiyo. maanta adii maaragtay laga mashquulo berina laga mashquulo saadanba laga mashquulo waxaan tagayaa xilli aan waxba la ii qaban karin inay madaxda soo xasuusato ay tiraado hadda diyaar ku nahay hadda aan wax ka qabaneynaa. markaas anigana xaqiiqatan uma baahni oo waqti wax laga qaban kara maahan. sida hadda arkaysaan lugtaan bidixda waxay noqotay daawac oo jiifkii badnaa iyo tabar daradii awgeed waxay sameysay in maaragtay boog sariireed galo. waxaan u moodaa in maaragtay weli daba qabasho aan leeyahay. marka maalinta ka dambayso waxaa leeyahay beri jawaab lagu soo siinaa saadan baa lagu soo siinaa. maalinta ka dambayso haddii la ii dhiibana waxay noqonaysaa arrinteedii inay meermeer ku jirto oo ma loo taagnaynba. runtii dadaalkiina aniga ma awoodo oo hadda maanta aniga hadda awood u leeyahay intaasba ma sugin madaxweyne iyo ra'iisul wasaare dhammaantoodba. waxaan ka codsanaa madaxda sida ugu dhaqsiyaha badan in arrinteyda wax ay kala qabtaan. runtii xilligaas ay ii jeedaan xanuun aad ay hayo lugtani aniga ma dareemayo xanuunkeeda, laakiin waxaan dareemaa in lugteyda dhaawac tahay ay waqti ka dambayso ay sii faafayso. marka intii anoo bareylis haddana haddii lugta ay kaan kala qaato oo la sii gooyo dhibaatadeeda leedahay. marka waxaan jeclaan lahaa insha allahu tacaala inay ii soo duceeyaan inuu Ilaahay caafimaad taam i siiyo dhexdeeda xaadna dib Ilaahay igu socdo insha Allah. ramadaanka fadligiisa waxaan Ilaahay ka baryaa inaan caafimaad taam helo.